kulankan oo looga hadlayay sida ugu habboon ee dibdhis loogu sameyn lahaa goobihii dagaalada ku burburay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir iyada oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay labada gole ee dawladda qaar ka mid ah qorbajoogta dalka dib ugu soo laabatay iyo marti sharaf kale wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo duurjoogta Maxamed Xayir Maareeye ayaa hadal dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay waxaana uu ugu baaqay qorbajoogta inay dalka dib ugu soo laabtaan kana qayb qaataan mashaariicda dib loogu dhisayo ayna sameeyaan maalgelin marka waa dhiirigelinayna runtii inay soo noqdaan jaaliyadu waxaan dhiirigelinaynaa in dalka la dhiso Soomaalida hadda ganacsigeedu aad buu furfuran yahay wax shuruudaa male ganacsatada magaalada cashuur toos ah kama qaado yani qof halkaas gaarsiisan adduunka boqolkiiba 30 ayaa laga qaataa cashuurta qofka markuu wax maalgeliyo faa'iidada uu helo yani cashuurta boqolkiiba 30 laga qaataa faa'iidadu helan haday badan tahay lacag baa laga qaataa marka runtii waxaan qabaa dalka oo dhan gudoomiye culayska hadduu saaray magaalada Muqdisho annagu dalka oo dhan baan ka hadlaynaa in dalka oo dhan jaaliyadu ku soo noqdaan oo dib u dhisaan oo aqoontii keenaan oo maamulkii wanaagsanaa ee meelaha ay joogeen ay ka soo barteen keenaan oo bedelaan dad badan oo wax bedelayna waa jiraan runtii oo hadda ganacsiga meelaha ugu qurxan meelaha ugu standardka fiican dalka waxa iskala jaaliyada soo noqdeen iskala ku amaanay Muuse Maxamuud Jiisow Star TV xafiiska magaalada Muqdisho